شعبك الصومالي الآن الدقمة قرلود دفاع دروع صارع إما كان السارية قرن كجمهورية الصومالي الآن الله أكبر الله أكبر صومالي الآن أنولاته صومالي الآن أنولاته أرجيتي هنولاته حزبي وطني هقول يستو اسمها يسيقى اسم دلدوق وهقول يستو صومالي الآن هقول يستو وحال الله يقوم هدنغيا إلى ما تسوق أني وكابي قو صارناهي دور الشغل سوبي ديدا نبضني نغا قبصدي ولا الله ياو دور الشدي مدحتويدا هي دور الشدي حزبية غرنكا وحي نوغا هني اللي حمالنو إلهي بينو مهدنا غينا maanta 4 maalinteeda waxaynu u dareeri doonaa sanaaduuqda doorashada waxaynu dooran doontaan hogaamiyaha kalsoonidiina siinaysaan ee idin hogaamin doona 5 sannadood ee soo socda isbeddelka soo ma taageersanidin isbeddelku wuxuu ku imanayaa codkiina doorashadu waxay u tahay guul Soomaaliland baa guulaysanaysa rajada shacbiga rumoobaysa codkiina ku rumoobaysa codkiina iyo meel khalada mari shacbiga Soomaaliland bay ku socotaa fariintaas waxaan mahad ballaaran iyo mahadnaq weyn u jeedinayaa salaadiinta iyo madaxda dhaqanka iyo guddiga beelweynta habar jeclo oo ilaahay ka sokow maanta suurto geliyey go'aankoodii inay doorashadani inoo suurto gasho odayaashaasi may mudnayn in dayuurad loo soo kiraysto oo burca looga soo hanjabo miyay mudnaayeen in lacagtii dawladda dayuurad lagu kiraysto oo odayaashii nabadda iyo doorashada keenay loo soo hanjabo oo laydhaa jeelkaa liinta ku cabbaysaa odayaashaasi waxay qaranka ka mudan yihiin mahadnaq iyo abaalgud iyo billad dahaba waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan waxaan u mahadnaqayaa inay caddeeyeen inay doorashada dhexdhexaad ka yihiin ciidamada qaranku waa astaan qaran ciidamada qaranku waa astaan qaran waxaana faraya inay sugaan ammaanka sanaaduuqda doorashada haddii aan la yidhaahdo waxaan u mahadnaqayaa komishanka doorashooyinka qaranka oo qabyo tiray qabsoomidda doorashada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalayaal shacbiga Soomaaliland dawladda ka mas'uula nabadgelyadooda shacbiga Soomaaliland ee degmada qurulugud difaacoodu wuxuu saaraa ima kana saaran yahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa inuu difaaco degmada qurulugud iyo dhammaan degmooyinka Soomaaliland xilkaasi wuxuu saaran yahay xukuumadda shacbiga ma saara innagana waxayna u waajibaa inaynu shacbiga gacan siino oo difaacooda kala qayb galno aniga oo musharax madaxweyne waxaan u taaganahay inaan difaaco dadkayga dalkayga iyo qarankayga
annagana waxaan leenahay reer Luqurlugud waannu idin garab taagannahay dhammaantayo walaalayaal waxaynu ognahay in doorashadii inooga hadhay la xisho waxaanan leeyahay qarankana waynu difaacaynaa doorashadana waynu gelaynaa soo sidaas maaha qaranka way difaacaynaa dadkeenna waynu difaacaynaa shacbigeenna waynu difaacaynaa doorashadana waynu gelaynaa soo sidaas maaha waxaan digniin siinayaa shaqaalaha dawladda waaxda garsoorka iyo ciidamada qaranka inaanay ku milmin siyaasadda ninkii siyaasad doonayaa shaqada ha ka tago oo siyaasaddaa soo galo waxaan ka codsanayaa saxaafadda iyo isbahaysiga inay diiwaan geliyaan qof kasta oo xeerkaa jebiya walaalayaal waxaa la bilaabmay imaka boobka hantida qaranka waxaannu mas-uuliyiinta xilalka haya uga digaynaa inay ammaanada loo dhiibay ku tagri falaan waxaan leenahay ilaashada sharaftiinna iyo qofnimadiinna shacbiguna wixii laga boobay way dabageli doonaan haddii alla yidhaahdo walaalayaal waxaan kaga tegayaa aynu doorashada u diyaargarowno aynu doorashada u diyaargarowno aynu isbeddelka taageerno aynu isbeddelka taageerno aynu isbahaysiga isbeddelka taageerno somaliland guusheedu waxay ku jirtaa inuu isbeddelku yimaado isbeddelkana waxaa hoggaaminaya isbeddel doonka iyo isbahaysiga isbeddel doonka oo uu kow ka yahay xisbiga waddani somaliland ha noolaato isbeddel doonku ha guulaysto somaliland ha guulaysato guusha somaliland waxay ku jirtaa isbeddel doonka u guulaysta waxaynu dhalin doonnaa guul somaliland wada leedahay doorashada in isbeddelku guulaysto waxay ka dhigan tahay in somaliland guulaysato in rajada shacbigu guulaysato oo la gaadho waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay isu soo baxan ama raaliga rag iyo dumarba waxaan u mahadnaqayaa madaxda kaambeynka ee xisbiga waddani ee gobolka guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan laamaha iyo degmooyinka xisbiga waxaan u mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan somaliland ha noolaato somaliland ha noolaato wayno 13 Noofambar iyo somaliland oo guulaysata codkeennana ku guulaysata salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu